enter. formkan registrationka waxyaabo badan ku sii dhax sameeynaa oo naga dhidhnaa hadduu ilaahay ka raali noqdo soo marka waxaan caawa sameynaynaa waxay tahay hal mar ii rangaree npm start okay waxa aan sameynayna waxay tahay validationkan delay ku jiro oo hadda a oo kale markay ma ka baxay حلا wax ka bedeshaa malayna كمان كانت validation مسوسارو يبه so command option I ده okay one in use reduce waxaan isku dadayaa class okay okay on submit on change handler sige marka yes errorkan ugu haystaa ha ciladana marka hore jirtay markaan glass component marka hore kan wuxuu ahaa mugtahay muhiimadda waxay tahay inaan xalino error yar laakiin waagi hore oo glass ay isticmaali jirnay meeshan oo hadda oo set new course oo use state ay isticmaalayno able set state isticmaali jirnay callback function lahayd soo marka kan callback function kuma shaqeynayo leeyahay marka intaan ka tirtir si aan caadi ugu shaqeynayaa hadda clear haddaan dhaho otherwise can also gay good okay hadda markaan tusaale ahaan Abbas rabo inaan qoro markaan qoro waxay ahayd mugtahay inaan ujeedadeen waxay tahay marka validation kan delay ku imaanay markii b la dhaho baxaya laakiin marka la dhaho wuxuu tusayaa wili inuu stringiga empty yahay sababtoo ah waxaan ku micneynay kan waa synchronous oo hore lagama fulinayo oo lane by lane looma fulinayo there is a concept oo waxa loo yaqaano oo promiseski iyo callbackeski ay isticmaalaan iyo event loop la dhaho soo marka lanekan maadaama waxyaabaha programming waxa loo qaadaa synchronous iyo asynchronous soo marka functionkan waxa waaye asynchronous markii functionkan calling ku sameeyso hore lagama fulinayo callback function ahaana loo haynaya lane ku xiga la fulinayo lane ku xil marka la fulinayo kan automatically state ko jeegreynaya in full name wax lagu shubay wilina full name wax lama sad gareen soo marka full name oo empty oo jeegreynaya saas darteed error ku soo baxaya kan markuu jeegreey kadib kan la sii update gareena soo marka cilada meeshaas ku jira oo delayga oo halka xaba ah meeshaas ay ka jirta soo marka si aan u xalin lahayn delaygaas waxaan ku xalin jirnay set state marka isticmaalnay callback isticmaali jirnay oo inaan after markii setup la sameeyo kadib function callback la wici jiray la hagaajiyo soo marka hadda ma laha sidee loo xalin karaa marka waxaan u baahanahay in markaan meeshaan tusaale ahaan aan taabto automatically errorkaas oo baxo oo Abbaskayga aan sii wato haddii marka hadda markaan tirtiro string empty way laakiin wili validationkii la fulina validation wuxuu fiirinaa inta la sii update gareyn ka hor oo daatada kaga hormara daatadii wuxuu fiirinaa wili inay harsan tahay maadaama harsan tahay haddii maadaama harsan tahay ku jirto wuxuu leeyahay full name empty ma ahan oo error ma aha haddaan mar kale aan fiiriyo hal mar dot schema
new course waa state keena hadda markaan dhaho meeshaan console.log new course itus haddaan dhaho maxaa ku jiro especially markii of name aan dhaho of input okay hadda markaa sidaan dhaho ee aan dhaho wuxuu tusayaa wili inay empty tahay b aan ku daray hadda wuxuu tusayaa markii eedi jeegaynaya hal steba waxa ka horeeyo keyboardkayga hal meesha inputkayga horeeyo Abbas markaa saas dhaho inuu saas i tuso hadda markaa kan tirtiro hadda clear aan dhaho eedan hadda markaan tirtiraayo automatically wuxuu tusayaa inay wili ee jirto validation error ma tusay hadda marka ee dhaho oo wuxuu tusayaa empty waaye sidaas darteed validation empty ah jiro marka sidee loo habeyn karaa waxa loo habeyn karaa loo xalin karaa arrinkaas in validation ka meesha aad ka qaadid kadibna aad fiirisatid aawi on cilada kama taagno blurka iyo waxyaabahaas waxay ka taagan tahay on change validation is ina meeshan ka guurisid aad samaysid use effect faa'iidada oo lahaayaan wili ku dhex soconaa ay use effect ku dhex qortid use effectgaas marka waxaa idin sheegay marka use effect markaan hadda isticmaalayno inta mar aragtay meeshan ku dhex isticmaali kartaa laakiin waxaa bishardi ah in ay noqoto high order it means function kan ku dhex jiraa waa in on loop dhexdeeda aad ku dhex qorin waa in oo function kale dhexdiisa aad ku dhex qorin hadda use effect igama dhex yeelayo inaan meeshan ku dhex qoro oo iga diidayaa aawi wax problem ma qabtay hadaan screenka split aan ka dhigo si ama lagu wareera mostly sidan oo kale laba line aan ka dhigo filekan midna validation ka iyalo yeah okay sakari okay and okay we meeshan dhex joogay validation kan hadda meeshan sorry inta hadda use effect aan ku dhex qoro meeshan change handler waa soma use effect hadda meeshan ku dhex qoro igama yeelay sababtoo ah meeshan looguma talagalay in use effect lagu dhex qoro because meeshan waa block level function dhexdiisa waa marka waxaa la rabaa inaa high order inaa first level aad ka dhigatid so marka use effect meeshan waxaa noo yaalo oo contextiga update kala soo siiya noo hubinayay another use effect meeshan samaysan kartaa use effect kadibna callback function oo qaadanaya use effect waxay tahay hadda mar kale ku celiyo in qaybtan yar blogan code ka ah la fuliyo marxalad walba oo componentigan oo isbedel ah dhacayso waxa sameyn kartaa hadda markay sidaan ay tahay wuxuu sameynayaa hadii property cusub oo soo gara update isku daraya hadii codekan blogan waa la fulinayaa hadii oo componentiga la burburiyo waa la fulinayaa hadii componentiga mount lagu sameeyo waa la fulinayaa update oo dhac waa la fulinayaa marka qaabka loo fulinayna adiga go'aan ka gaari kartid soo marka waxaa jirta wax loo yaqaano dependency inaad saan dhahdid bracket aa furtid bracket aa xirtid oo array oo aa furtid arrayda marka waxay u taagan tahay use effectigan raba inaad dib u sii sharxo arraydan waxay u taagan tahay okay update iyo probe change iyo waxyaabahaas iska ilow kaliya mounted kiisa ama mounted macnaheedu waxay tahay marka componentigan la abuurayo iyo marka la destroy gareynayo bis fur macnaha codeka meeshan ku yaala ha shaqeeyo use effectigan markaas ha loo waco okay haddii meeshan aad ku qortid variable meeshan aad ku dhex isticmaalaysa aad ku qortid waxay tahay waxba mounted iyo ha fiirinne waxaa ogaataa variable ka markuu isbedbedelo basically change samee effect samee soo marka waxaan rabnaa inaan dhahno use effectigan waxaan rabnaa in uu saameeyo markii update-keena uu isbedelo ama waxaan sameynayaa state cusub aan sameysanayaa state-ka cusub kale aan sameysanayaa muxuu yahay state-ka cusub oo waxaan sameysanayaa haddaan dhaho hadda for example meesha update change imaan mugta markii change la sameeyo update-kan use effect ha isbedelo validate functionska wac laakiin problemka meesha imaanaya waxay tahay hadda ka horna aan videodii markaan sharxay aan ku sheegay kan iga xir aawi select change ha validation kan hadda daan meeshan command aan dhaho soo qaado control c aan dhaho oo meeshan aan keeno oo control v aan dhaho
kadibna meeshaan name hadda wax la dhahayo ma jiro so validationka markii oo change handlerka uu taagan yahay waxaa la siinayay moogtahay change handlerkan waxa waaye inputka uu ku xiran yahay inputkaas marka inputka handlerka sameeyey automatically wuxuu wataa name so marka namekii oo wati aan validation ku sameynaa sidee marka namekan u heli karnaa so marka namekan waxaan ku sameyn karnaa inaan state ku kaydsano inaan state ku kaydsano aan dhaho let current input iyo set current input okay equal use state so marka state cusub aan sameysanayaa oo current input la dhahayo so marka waxaan awoodaa marka inaan dhaho automatically markii inputkan uu isbedelo waxaa dhahdaa meeshaan set current input waxaa isbedelay name so marka default marka meeshaan empty ii geli control z defaultiga empty waaye so marka set current input waxaa gelisaa name so markaan name meeshaan aan ku saxo use effectiga marka la imaado waxaan leeyahay automatically current input meeshaan marka waxaa galaya ama waxaa namekan ama full name ama email ama phone haddaad la socoteen oo anaga variableskeena ayaa meeshaan lagu set up galayna current input mar wuxuu noqonayaa full name mar wuxuu noqonayaa email marka waxaan leeyahay use effectigan kaliya waxaad dhegaysataa markii current input uu isbedelo current input markuu isbedelo dhegayso wax kale ha dhegaysanin so marka waxaa loo yaqaanaa dependency micnaheedu waxay tahay wax ku xiran hebel macnaha maanta haddaan ku dhaho maxamed wuxuu dependent ku yahay cali micnaha waxay tahay cali la'aantiis ma shaqayn karo so marka use effectigan waxaa dependent uu ku yahay current input markay isbedesho ayuu shaqaynayaa laakiin tan ciladaa ka imaanayso oo validation ma sameynayo automatically meeshaan hadda validate current input ma sameynayo sababtoo ah aan idiin sharaxo sababta okay waayo marka koowaad hadda saan empty u imaanaysaa reasonka marka koowaad oo sidaan empty u imaanayo waxay tahay use effectiga markii koowaad oo initial loadka horta renderkii ayuu isku dayaa inuu render gareeyo current inputna waxaa ku jiro automatically string empty marka validate uu wacaya current input oo string empty oo siinaya string empty marka la siiyo markii validation la aado functionka validationka markii la aado waa kana validation marka la imaado hadduu inputkeena oo null yahay ama empty yahay automatically wuxuu sameynayaa dhammaan waxaa jeegaraysaa meesha irasoma if input hadduu wax ku jiro ayuu wuxuu hubinayaa in haddii error jiro inputkaas bes oo sameeyo haddii laakiin inputkeena uu empty yahay automatically wuxuu sameynayaa dhammaan validationska meeshaan oo idil in uu jeegareeyo so marka sidaas darteed waxaa sameyn kartaa inta inaad default value iska gelisid for example inaad dhahayd hadda full name oo kale haddaan dhaho I think saan inoo qorneedaan jeclahay daana khaldaneen yes full name oo kale haddaan dhaho jeegareynta ayadoo ka bilaabaa bis in ayada la jeegareeyo so marka waxaan u baahanahay inaan tusaale ahaan x y z aan iska dhaho waxaarka iskaga qoro adiga filla aanan jirin so marka ma jiro sidaan marka wuxuu ku noqonayaa si default ah wuxuu ku noqonayaa empty ayuu ku noqonayaa so marka waxaan u baahanahay laakiin meeshaan cilad kale soo baxayso ah haddii marka x aan dhaho x-kii aan tirtiro weli validations ima tusaayo sababta oo validationska i tusaayo waxay tahay meeshaan haddii aan fiirino use effectiga inta aan ku qortay haddaan dhaho console.log aan dhaho current input itus aan dhaho okay markii kood wuxuu itusayaa in full name oo jiro inta daa imaado oo aan isku dayo 1 2 3 aan ku qoro fonkii wuu isbedelay waa la rangareeyey oo errorkii oo keenaya haddaan inta ku laabto aan dhaho full name oo ku rangareynaya soo marka eedi haddii aan tirtiro lama rangareynaya full name dib loogu soo celinaya sababtoo ah kaliya wuxuu fiirsanayaa
use effectiga inuu full name isbedelo full name isma bedelno wili full name kiyo yahay ayadoo magaci dib lagu soo bedelayo oo sad la leeyahay haddana wuxuu fiirinayaa hore maxaa ugu jira full name hadda maxaa ku jira xal soo dhigi full name soo marka code aan fulinayo ma jirto soo marka validation iska lama fulinayo anigana waxaan u baahanahay every single input in validation keena la jagreeyo sidaas darteeda waxaa ku khasbantaa inaad dhahdid meeshaan waxaa ka bedeshaa meeshii instead aad samayn lahayd string caadi aad siin lahayd object c defaultine name ka dhig kadibna name waxaa dhahdaa xyz ama wx camal ama xyz ama triple x dheh sidoo kalena value ama val ayadana empty object ka dhigo ama sidaan dheh wax culeys ma laha soo marka maxay kan ku saacideynay waxay ku saacideynay hadda meeshii aan current input object waaye waxa dhigi kara current input dot name kiisa automatically validation ku samee waxay iga saacideeyay marka inaan automatically aan dhihi karo set current input name bas ha siinine waxa ii samaysaa object c name kaas comma objectiga waxa ogtaa hadduu keyga iyo value-ga isku wax yihiin instead aad dhihi lahayd name equal name aad dhihi lahayd automatically waxaa kugu filan inaad name bas dhahayd sida inaad dhahayd oo sidaas keyga iyo value-ga saas isku wada galaan meesha marka waxaad siinaysaa update stat update val hello codka naga xira value waxaa siinaysaa update state kan of marka input kala taagan yahay maadaama ay object tahay meeshaan haddii full name value-geeda iyo waxaas soo marka waxay samaynaysaa si uu state kan maanta oo isku bedbedelo name kan hal mar marka la evaluate waa sidiisa waay laakiin value-gan wuxuu awoodaa marka wuxuu sameynayaa ilaahay kuma darnaadee wuxuu sameynayaa haddii Abbas oo la geliyo a way isbedeshay b way isbedeshay marka in uu effectigeena maanta idil oo fulfulo ay noo saamixaysaa sidaan oo kale marka inaad dhahayd hadda daan dhaho meeshaan clear naga dheh haddaan dhaho hadda Abbas soo ma jeedid value a marka value-gana isbedelaya full name isbedelaya value-ga markuu isbedelo automatically wuxuu sameynayaa wax loo yaqaano shallow copy oo value-ga object-gan ku jiro iyo value-ga cusub oo isbarbar dhigaya marka value marka hore empty ahaa hadda waxaa soo galay a soo marka use effect-gan dib loo ran gareeyo marka dib loo ran gareeyo automatically validation-keenu dib u ran gareynaya asigoo siinaya full name-ka la jagreynaya hadda a haddaan dhaho Abbas asaas dhaho mar walba dib loo wacaya soo ma jeed mar ayadoo a wata loo wacay mar a b mar a b a mar a Abbas ayadoo dhameystiran hadda haddii aan clear gareeyo kan ugu dambeeya markaasaan dhaho automatically hadda validationskeena iyo inputkeena way isla wada socdaan marka logic error-kana hay sidaas ku xalisan kartaa adigoo use effect-ga ka faa'iideysanaya meeshaan warning yar oo ku tusaya warning oo ku tusaya waxay tahay mostly wuxuu ku base gareysan yahay variables-ka aad meeshaan ku isticmaalaysid in ay dependent noqdaan soo marka wuxuu ku leeyahay waa inaad ku darta meeshaan waxaan ku isticmaalayaa laba name ku isticmaalayaa current-na waa isticmaalayaa name-kan problem mala because current igaanu ku dhex jiraan iyo validation-ka marka waa inaad meeshaan validation geliso ku leeyahay laakiin validation haddaa gelisid meesha maanta idin error ku soo laawanaya waxba ha gelinin validate ha gelinin sababtoo function kan automatically mar walba dib loo ran garay waxa imaanayo call alt option f maanta idil waxa imaanayo error oo asiga iswacwacayo soo marka marar qaarkood iska ignore garay current input bas leh iyo dhageysa dheh waxaan kala shaqo kuma leeyahay okay qaabkaasaan ku xaliyay the second one aan rabo inaan caawa ka hadlo waxay tahay taastii hore oo dhameystirka ahayd the second one aan rabo inaan ka hadlo waxay tahay react.js.org documentation and hookies API reference qayb ayadana hookies oo muhiim kuwan kale idinka soo fiirfiiriya laakiin waxaan rabaa caab inaan wax yar iskor taago use reduce kan automatically waxay u shaqeysaa qafka Redux arkay qaab Redux ahaan u shaqeey Redux-ka iyo ayada waxa waaye isku formal ahaan u shaqeynaya meeshaan special wuxuu ku leeyahay if you are familiar with Redux you already know how this works
soo marka kan haddaa fahamtid radix way kuu fududaanaysaa xogo inaad fahamtid haddaada fahamsaneen haddaa radix hore usoo qaadatane ama aa usoo aragtayne kan culays kuguma aha soo marka waxaa loogu talagalay waxay tahay markaa functional component aa isticmaalaysid instead aa isticmaal lahayd use state aa isticmaal lahayd waxaa laga doorbidaa inaa isticmaashid oo ka roon inaa isticmaashid reduce marka waxay kuu samaynaysaa use reduce waxay kuu samaynaysaa wixii meeshan hadda meeqi state aan isticmaalno statekan 1 2 3 dhamaantood hal xab waa ka wada dhigi kartaa laakiin waxay samaynaysaa waxay u baahan tahay inaa objectiyada kala ilaalisid si override ay isugu sameyn soo marka waxay kuu awoodaa inaad samaysid in wixii organize ay kaaga dhigto oo hal meel laga maamulo adigoo action iyo dispatch wax la dhahayo isticmaalayo sidee maxaan ujeedadu maxay tahay aan si kale u dhigo hal mar aan qaybtan aan ku bedelo oo kan iga dhaaf waxaan ku bedelayaa meeshan oo set new course la dhahayo statekan ayaan waxaan u bedelayaa reduce ahaan ayaa u bedelayaa so waxa laga rabo waxay tahay marka koowaad inaad samaysid function loo yaqaan reducerka wuxuu qaadanayaa state iyo actionkan object waaye objectigaas marka wuxuu u baahan yahay laba nooc si kale u dhigo waxaa u baahan tahay inaad samaystid functionkaas waxaa u bixinaysaa magacaarta u baxsan kartaa laakiin mostly reduce noogu wac si ay familiar u noqoto reduce marka wuxuu qaadanayaa laba parameter state comma iyo action then markii iyo aasiisid intaas waxaa u baahan tahay if iyo ls isticmaal hadaart ama switch case isticmaal mostly switch case la isticmaala laakiin if iyo ls waxa if iyo ls ku qaban karta switch case waa ku qaban karta waxa switch case ku qaban kartin if iyo ls waa ku qaban kartaa soo marka switch okay switch soo marka mar walbo actionkan waxaa la soo siinayaa objectiga marka wuxuu u kala baxaa type iyo payload ama probes ama parameter waxa rabtid payload soo marka waxaa hubinaysaa haddaa destructor sound u samayn kartaa laakiin si guud waxba anagoon ku wareerin action haddaan dhahno soo marka waxaan jeegareynaynaa action typeka nooca action oo loo soo dhiib action maxay tahay waa falcelin soo maa qof inuu macnaha action oo qaado soo marka action dot type actionka nooca uu yahay hadduu case soo marka maxaan samaynayaa marka hore meesha maxaa ku isticmaalahay set new course soo ma this type of action aan isticmaalo hadduu yahay set new course hadduu yahay automatically waxaa ii samaysaa return new course markii la soo celiyo automatically waxaa ii samaysaa action dot payload macnaheedu waxay tahay parameterska actionkan macnaha muxuu parameters oo wataa inaad dhehi kartid return dot state macnaheedu statekan marka meeshan yaallo waxaa waaye valueska hore ugu jiray wixii hore ugu jiray stateka hore ugu jiray comma action dot payload okay meeshan dot deh ayadana meeshan objectiga oo wado kan payloadkan objectiga wadaa kan stateka hore ugu jiray soo celi plus payloadkan cusub oo la soo celi meeshan break iyo return isma qaadanayso sababtoo ah return iyo break way isku dhigmaan meeshan close deh soo marka halkan action aan isticmaalno then waxaa awoodaa inaad samaysid automatically this objective control C copy deh commentin iga saar waxaan samayn karaa markaas waxaa samaynaysaa let bracket for meesha marka wuxuu kaa rabaa markaas sidaan samaysid statekii oo daatadii ay gelaysay plus dispatch wax la dhahayo magacaartaa u baxsan kartaa laakiin laba function
ابل ماشي محو سو علين جيرين لaba function soo ma soo celin jirin oo new course iyo set course waxa function kan new course gan waxay tahay function state ka oo waxaan ay ku jiraan sidaas oo kale meeshaas waa dhigi kartaa laakiin mostly waxay isticmaashaa inaad dhahdid state comma dispatch I think okay equal and use reduce hooks kaas la hayo wa kadib bracket for wuxuu u baahan yahay marka use reduce function reducer oo ku sameyn lahaa function ki oo wici lahaa soo marka reducer keen kor ku soo define gareyn inaad siisid definition ka oo reducer okay comma wuxuu kala ka rabaa initial maxaa marka kood state keena muxuu ka bilaabanayaa automatically initial value in control v de meesha ka soo koobiyeysan oh sorry meesha reduce ay qoran inta reduce aan ku qore okay reducer de maadaama shaqadaas si qabanaya reducer okay waa ka saa reference function ka soo refer gareynaya default value waxa u sii full name iyo phone iyo email iyo holahan aan u siiyay sidoo kale let's make sana ku sameeyo ama waxaan dhigi karaa inaan dhaho ama object-gan state-kan saan ha ahaado anaga wax kale si kale tusaayo wax kale u dhigayo so marka every time hadda set new course meeshan ma jiro automatically marka context-ka ay imaado meeshii set new course-ga la wacay waxaan dhigi karaa hadda automatically inaan dhaho dispatch sorry yaana code-ka hore aan refer gareynin inta waxay tahay context-ga markuu update imaado waayo inaan dhaho dispatch kadibna aan waco kadibna aan u baas gareeyo object aan dhaho type kiisa ka dhig type muxuu ahaa nooca type anaga aan sameeyay inta ikeen meeshan qaybtaan ka socdo set new course okay comma soo marka maxay tahay wax la update gareynayo control z de kadibna aan dhaho payload waxaa siisaa automatically waxaa u baas gareysaa student context.update data payloadki u baas garee inaad payload saas ugu baas gareysid laakiin si guud waxaa qurux badan marka mostly marka complex state isticmaalaysid oo objectives aad sameynaysid meeshay hadda kan aan ka dhihi lahaa sidaan waxaa iga fiican inaan dhaho inta hal mar inaan dhaho object kala fur kadibna aan dhaho ama control z de inaan meeshaan dhaho marka hore maxaa isticmaalaya new course soo maahan control c new course waxaa siisaa payloadka oo ninkaan soo qaaday new course marka object oo new course la hayaan sameynaya automatically marka meeshii hadda aan ka isticmaalayay object si toos ah initialization ka u siinay waxaan isticmaali karaa inaan dhaho another object kale inaan meeshaan dhex geliyo then aan meeshaan dhaho new course alt option f control z alt option waxaa iga dhiman labadii dhibcood okay hadda format dheh okay soo marka meeshaan hadda wuxuu iga rabaa inaan dhaho control x okay payload marka waxaa siisaa update ka imaanay meeshaan waa bedelnay waxaa kaloo bedelis iga rabto kan intuu ahaa kan kii validate ka soo ma ahayn okay ma aqaan wax comment saar macnaha comment saar validate ki sidaas ha ahaado waxaan u baahanahay
kan sidiisa waaye intee kale new course error ka jiro ayadana sababtoo ah meeshaan wax la dhahay new course ma jirto laakiin waxaa jiro waxaan isticmaalayaa state dot igama dhamaane dot new course state kan oo dispatch oo ka soo laabanayo waa kan state soo marka object oo new course la hayo leeyahay new course ina dhahay intee kaloo aan wax kale ka saxay okay sidoo kale set new course ga ayada naftigeeda meeshaan labada meel error ka jiro intane new course meel walba new course ka isticmaalayso waxa ka hormaraysa state dot new course inta meesha set kan comment saar waxa dhehaysaa dispatch kadibna aad object c type kiisa waxa dhahdaa set new course waaye type kiisa nooca type ka uu yahay new course la set gareynayaa comma payload kiisana waa payload automatically waxaan leeyahay update state okay kan copy meesha meel walba new course waxa ka hormaraysa state okay kan comment saar control v de okay soo marka meeshii inta oo full name iyo destructor lagu sameyn jiray waxa leeyahay state dot new course okay maxaa kaloo error jiro okay control s de okay hadda waxa keentaa meeshaan muxuu leeyahay ama refresh de error ma jira okay new course is not defined okay lane 103 ka soddon meeshaan migeena maya lane 103 103 miya 130 waay 103 105 okay yes ayaan inta ugu haystaa okay state wax walba waxay hoos imaanayaan under state okay good hadda componentgeena aan dib u fiiriyo registration formkeena aan fiiriyo automatically meeshaan waxaa u jeedaa reducer inuu si default object u haysto oo new course oo valuegiisa wixiis ah hadda marka meeshaan aan dhaho Abbas soo jeed automatically in la update gareynayo oo wixii sida u shaqeynaya hadda ka tago error inuu sidaas u shaqeynayo soo marka kan wuxuu iga saacidayaa reducer ka inta object ka markaan ku haysto new course object kale oo ayadana error ah waa ku dhex samaysan karaa soo marka waxaan dhihi karaa haddana set new course soo ma ahayn error ka maxaan u isticmaalaa ayadana current input where is it set new course meeshaan u isticmaalay away error markaan sax aan sida gareynaa maxaa which state aan u isticmaalay state ka u isticmaalay error ka maxaa ku qoran hadda iga runtiin soo sheega away waa kaasa yes set error soma set error ka ayadana inaan comment saaro oo automatically meeshaan reducer ka aan imaado aan dhaho the same thing okay haddii action type ka oo set error uu yahay state ki wixii hore soo celi meeshaan marka waxaan kaa rabaa inaa isticmaashid course error control c this objective course error action dot payload ayadana c action dot payload markaan siiyo soo marka meel walba oo aan ka isticmaalayay meel walba aan ku dhex isticmaalayay set error hal meel ka dhex isticmaalayaan jeclaan waa validation markaan imaado automatically meeshii set error iyo hebelogan iyo aan ka sameynayay waxaan dhihi karaa intaan horta comment iga saar kadib waxaan dhahayaa dispatch bracket for tookadan typekiisa wuu ka duwan yahay type waxaa isticmaashaa wax loo yaqaano
maxaan isticmaalayna muxuu ahaa set error ahay soo ma control c control v typekiisa waa set error magacarta type isaga baxsan kartaa maadaama aniga hadday stateyadeena iyo state changerkeena oo set error iyo set new course uu ahaa hadda ayadan ku base gareynaya set error sidoo kale payload okay payloadna waxaa ku samaysaa okay payload maxaan sameynaa oh sorry meeshaan objectigiyaan ka hilmaamay intaan object geli payload automatically kan marka muxuu qaadanayay wuxuu qaadanayay hadduu inputka error ka jiro ahaa marka inaan dhaho meeshaan course error meeshaas ay noqonaysaa okay inta object c object markaa siisid kadib waxaan dhahaynaa this object c is u koobiyey control c saan dheh control c copy kan ku baastigare so waxaan isticmaalaynaa hadduu jiro state dot course error haddii hore u jiraan soo distract garee or ama empty object ka dhig kadibna waxaa samaysaa waxaa ku override gareysaa inputkan oo state errorkiisa oo saas yahay okay meeshaan ayadana ls meeshaan set errorkan maxaa empty ka dhig inta okay ls ta intee la socotaa if input la socota haddii oo inputka la waayo kale inputka haddii qofka uusan input soo dhiibin set error meeshaan objective toos soo lama siin jirin marka waxa uu hadda ku sid garanaa malana sid okay meeshaan objective qaadan jira umaleynaa mise empty objective ahaa okay hadduusan error uu jiro oo errorka marka la imaaday kadib oo haddana oo errorkaasna input gooni ah uusan lahayn this is the ls part waxay noqonaysa marka inaan dhaho dispatch bracket for type waxaa siisaa sorry mar walba objectigaana hilmaama si guud waxaa la samaystaa marka actionska file gooniya loo samaystaa oo actions la dhahayo inaad typeki iyo payloadki aad ku qoratid hadhowna aad wacwactido type kadibna typeka noociis muxuu ahaa set error okay payload automatically hadduu input jirinna si toos ah waxaa u siisaa error resultiga soo baxay error resultiga oo soo baxay saanu ahaa meeshaan maaqaan objective waxaan kaga tagay okay error resultigi soo baxay dib u sii okay haddii marka uu elstan waxay la socotaan jeclaa ifta kore hadduusan error jirin waxaa samaysaa marka dispatch dot type dot type sorry dot type wallahi ma jiro style bracket for type okay set error si fiican u qore okay set error comma payload ayadana waxaa siisaa empty objective hadduusan waxba error jirin intee kaloo hadda aan ku isticmaalayni waxaan kaloo ku isticmaalayni meel walba oo course error ka jiro waxaa ka hormarisaa control d okay dhammaantooda control d markaa dhahayd waxaa waaye cursor kuu saaraya kadib flaarta geeska taabo state ka hormari dot course error full name okay let's look hadduu ayadana noo shaqeynayso okay intee wax ka jiraan 145 error okay objectiga oo error ma sameysay propertieskiisa
okay sug marka error property oo default u lahay miya course error ha properties kiisana so oo default u lahay si fiican email iyo phone-kii iyo okay awi meesha commenti kaga saaray awi use reducer waa kana use effectigan kan collapse iga samee effectigan kala collapse iga samee validation okay use reduce meesha looga isticmaalayo meesha sad error inta waa sayi laakiin marka hore ma lahayn ogtahay wax default ma lahayn laakiin cilada jirta waxay tahay course error marka saando hadda markii koowaad waxba kuma jiro state.course error marka la dhaho marka inta la imaado initial use reduce marka la imaado initialka ma laha course error ma laha objective ma aha soo marka ina meeshan aad ku dartid kadibna aad sidaan dhahdid waa oo u baahan yahay object ka dhigtid soo marka state.course error marka dhahdid state oo jira course error undefined way undivided full name ma jiro wax la lahayo soo marka sidaan la dhaho object full name kaas undefined hadoo imaado wax culeys ma laha sorry control s okay good hadda daan fiirino registration form keena reducer keena automatically hadda wuxuu ku shaqeynaa laba state oo wata oo midna koorsada ay ku jiraan midna course error ay ku jiraan okay ciladan intee ka imaad xxx undivided yes markii koowaad xxx undivided wuxuu ka imaanayaa wuxuu sameynayaa xx kaas wuxuu ka imaanayaa meeshan uu ka imaanayaa current inputka maadaama meeshan aan xx siiyey initial loadka use effectigan aan rangareysmaayo use effectigan markuu rangareysmo oo current inputkan uu rangareysmo validate wacaya validate markuu waco automatically uu waco wuxuu sameynayaa functionka validate la wacaya woo jeegreynaya haddii wax error aysan jirin kadibna error ma jiro xx undefined oo ku qoraya laakiin marka waxaa sameyn kartaa waa ku dayn kartaa wax u culeys ma laha ama haddaad inaad celisid meeshan condition waxaa sameynaysaa if current input dot name not equal are not equal to meeqa x ahayd 3x soo ma kow laba 3 haddaysan intaas lamid ahayn inta kale soo hartay validation ku sameey marka sidaan oo kale hadda dhahno hadda refresh aan dhaho hadda reducer keena mujida course error empty object waa soo marka hadda haddaan dhaho meeshaan Abbas soo mujida Abbas undefined error ma laha haddaan Abbas bas validation ka ku soo celiyo wuxuu leeyahay Abbas is not allowed to be empty error wixii uu gudbiyay soo marka inaad stateskaaga oo idin hal meel isugu wada keentid oo action type tab u sameeysid oo wixii la sameyn lahay iyo ku wada qabatid that is waxa waaye the next level of use state inta isticmaal lahayd use reduce ka isticmaalsid the same concept in a redux isticmaasha action type iyo payload ka marka mar walba dispatch ka magac walba u baxsan kartaa sida teeda kalena maxaa waxyaabaha distraction markaan bixinayo aan sameeyay maxaa kamid ahaa qayb section oo distraction aan sameeyay state kan in sida state deal ahayd waxaa sameyn kartaa distractor soo kuma sameyn kartid inaad dhahdid new course comma maxaa kaloo sameyn karnay new course iyo course error soma comma course error inaad dhahdid inaad sidaan u isticmaashid kadibna instead aad isticmaali lahayd state aad isticmaali lahayd inaad ayaga toos u isticmaashid waa sameyn kartaa soo marka hadda isku daya meel walbo control F dheh okay meel walbo oo state dot ay ku qoran tahay automatically toban meel waaye empty ku bedel course dot error hebelo ku qor okay the same waa kaasa refresh dheh wax error computerkayga ma keenin soo ma jeedid wuu shaqeynayaa haddaa ka tago errorka wuu keenayaa nidaamkan waa ku sii shaqeysan kartaa oo sidan waa u sameyn kartaa state walba oo wixii inaad stateyadii hal meel isu wada geysadoo aad manage garaysatid ayadana waa sameysan kartaa waxaa kaloo awoodi kartaa haddana meeshan state kale ma ku isticmaalin kan xataa
current input inaa ayadana meeshan aad ku darsatid samaysatid another case kale case set current input oo kale typekiisa aad dhahdid inaa noocan oo kale dhahdid haddii marka nooca actionka uu yahay current input bedel stateka aad ka isticmaal lahayd inaad nidaamkaas isticmaashid qaabkaanne waa sheeko jirto oo aad isticmaali kartid ayada naftirkeeda soo marka use reduce-ka marka meeshaas kaga baxeynaa wax su'aal yaa iga weydiinaya hello شادي okay hal mid kale aan ku darayaa mararka qaarkood haddii set new coursegan arabti inaad bedeshid mararka qaarkood waxaa jirta wax loo single source of truth maxay tahay waxyaabahan redundancy-ga soo laabanaya hadda haddaan control F aan dhaho sorry okay set new course 8 meel aan wax ka bedelo hadda set new course haddaan rabo inaan bedelo oo aan ku bedelo tusaale ahaan state oo action la dhahayo type la dhahayo courses aan rabo inaan ku bedelo 8 meel waxaan ku qasbanahay inaan tagtago oo mid walbo aan waxaas ku bedelo sidaas darteeda waxaa la sameeyaa file gooniya laga samaystaa ama intoo kale waxaa ku samaysanaysaa object oo let for example actionis oo kale inaad dhahdid actionis okay then waxaa awoodaa marka inaad samaysid automatically midka actionka nooca typeka koowaad inaad samaysid okay magacaada u baxsan kartaa for example inaan dhaho tusaale ahaan set new course oo kale inaan inta dhaho set new course value-giisa aan siiyo control C control V inaan set new course aan sidaan u isticmaalo marka meeshan instead aan sidaan dhihi lahaa waxaan dhihi karaa actionis dot set new course kan ii copyey control C de okay meel walba oo aan ku isticmaalayo control F de aan ku isticmaalayo set new course meeshan oo kale hadda type so waxaan rabaa inaan raadiyo condition sidaan oo kale iskula socdo okay meeshan oo kale type hadda markaan dhahayo inaan dhaho action dot set new course okay where is the second place ayadana meeshan waay inaan ayadana dhaho command V action is dot set new course the third place ayadana meeshan waay action is dot set new course so marka inaan sidaan u isticmaalo waxay ii fududeynaysaa marka haddaa action typekeyga aan rabo inaan bedelo action typekeyga haddaan rabo inaan bedelo hal meel aan ka bedelaya dhammaan meel walba way wada bedelmaysaa koodkii sidiisuu kugu shaqaynaya wax cilad ah ma haysato oo cali axmed automatically wuu shaqaynayaa oo inaad sidaas samaysid sidoo kale action oo error lahay inaad saas u samaysatid oo ayadana oo qaabkaas kugu shaqeeyo waxaa waaye waxyaabaha oo koodkaaga fududeyn kara waa okay so marka haddii intaas wax su'aalaysan ka jirin waa ka gudbayaa next waxaan galayaa wax loo yaqaano react router aan rabaa caawa inaan intaan ka gaarsiin karna aan ka gaarsiiyo aan sharaxo hadduu ilaahay ka raali noqdo soo marka si aad u heshid waxaad leedahay google-ka tag react router dom automatically this is website-kooda saxda ah waaye
ku dhufo quick start sida marka hore loo install garanayo npm install react router dom kadibna waxyaabahan browser router iyo qaabka loo isticmaalayo aan isla wada aragno hal mar marka haduu ilaahay nafta nagu simo soo marka waxaan u baahanahay projectiga inaan iska close gareeyo before aan projectigan close gareenin okay documenti okay ls okay okay form ka ku shaqeynaa qaybta waa soo ma okay waxaan leeyahay soo marka project cusub aan rabaa inaan sameeyo soo cls ma yaqaaniya project cusub si aan u sameeyo waxaan leeyahay nbx soo ma ahayn nbx create react sorry create dash react dash app appkeena magaciisa waxaan u bixinayaa my route iska dheh oh sorry capital ma la ogolo my route okay su'aal waxaa laga yaabaa inaad isweydiisaan ama aan idin weydiiyo bu haddii inta waxaan noogu sii install gareysmaayo wax walba oo documentation ah waxaan u raadin jirnay meeshaan reactigan u raadin jirnay laakiin hadda react routerkiisa website gooniyan u raadinay yaa ii kala sheegi kara farqiga u kala dhexeeya react iyo react routerka hello jadi haddaan isku dayo reactga ayada inta badan component renderingka xoogga saaraysaa kana waxaa isleeyahay waa library kale oo react asina ka tirsan laakiin documentation gooni waxa lagu sameeyey qaybta routingku qaabilsan yahay laakiin reactga ayada conceptigeeda waxa waa rendering waay in waxa la rendereeyo kale conceptiga oo ma laha routingka marka waxaan umaleynaa saasa marka website gooni looga dhigay si fiican si guud horta reactiga philosophy-geeda waxay tahay ama fikirka ee ku shaqeyso waxay tahay in mar walba as a library ahaan u shaqeysaa while luqadaha kale aad fiirisid hadda react hadda kale marka website-keeda ku dhufatid kan naga qaad JavaScript library for building user interface ayada shaqo kale ma qabto component ina abuurtid component-igana aad ku render gareysatid iyo life cycle-keeda iyo waxaas bisi ku shaqo leedahay soo marka maadaama ay qaybtaas yar ku shaqo leedahay waxaa loo yaqaanaa waxay u noqotay library ahaan u noqotay angular-ka iyo vue iyo kale haddaa fiirisid vue.js oo kale vue.js.org website-kooda haddaa geshid maxay ku leeyihin javascript framework waay anaga framework aan nahay ku leeyihin qolooyinkaana maxaa nahay ku leeyihiin javascript library difference-ga u kala dhexeeya waxay tahay naag qofkan aan dhehe naag miyaa misnin waa horta react nin waa walaalkeeda laga dareemaya ya nin okay marka xoogga bis waxay saaraysaa component abuurida iyo dom manipulation-ka bis xoogga saaraysaa wax kale ama routing ha ahaato ama ha ahaado state ha ahaado ama waxyaabahaas oo idil shaqadooda ma aha soo marka framework-na waxaa la lahaa dhowr frameworks oo laisku wada keenay adhehe dhowr libraries oo laisku wada keenay oo laisla wada isticmaalo oo meel laisugu wada keenay oo hab gooni ah nidaam gooni ah aad ku shaqaynayso ayaa waxaa la lahaa
frameworks la isku wada dhahaa so marka Vue.js oo kale ama Angular marka install garaysanaysid you don't need inaad soo install garaysatid routerkeeda marat inaad soo install garaysatid state uma baahan inaad soo install garaysatid si default ah ayaga ku siinaya state-kooda iyo router-kooda so marka React markaad joogtid wuxuu ku leedahay anaga waxaan qaabisnaa DOM manipulation marka waxyaabaha routing-ka ama state-ka iyo waxaad isticmaali kartaa daarta adiga state cusub sameeyso hadaarta adiga router cusub sameeyso router-ka muxuu yahay router-ka waxa taa navigation scan way marka inta ku dhufatid documents inuu ku geeyo inta marka ku dhufatid tutorials inuu ku geeyo inta marka ku dhufatid URL kan la bedelo oo ayadoo page-kii reload lagu bedelayo bis title-ka la bedelayo hadaa u jeedaan meeshaan u jeedaan waxba reload looma diraayo soo ma jeed title-ka bis la isbedelayo soo marka nidaamkaas oo waxaas kala hagayo ayaa waxa loo yaqaanaa routing-ka soo marka qolooyin kala develop gareysay router-ka ayaga marka hadana documentation-kooda isticmaalayna React-gan ku xiranayna marka ujeedada waa fahamteena filaa si fiican okay Google-keeyo ka hadan tago sugaan weydiiyo Angular okay the modern web development platform the platform oo Hawaii oo huge ah waaye I never caawa ka hor xataa website-kooda soo booqanin Angular develop across all platforms waxaa jiro wax loo yaqaano Ember yaa maqlay weli ya Amber may framework kala waayo oo framework-yadu mid ka ugu da'yar waaye libraries ka oo front end frameworks kala isticmaalo kaalanta afraad hadda ku jirtaa React ya waxa la population isticmaalkeeda 1 Vue 2 Angular 3 ayada marka 4 حتى سو كريستو مثلا اوكي منو دمادي installation كان yes installation كان منو دمادي cd okay then وكاس a framework for ambitious web developers ايضا قفك documentation كده راه انه اخريه ماشي سا وراديو اوكي شيخ wuxuu isku leeyahay waxa tagtaa laakiin waxba meeshaan aan tagay inta aan ka soo aado so marka okay open folder okay React midkaad cusub asii my router open leh okay waxyaabaha hadda Visual Studio waxaan saan ugu sameynayo oo kii hore iska xiraay ama meesha aan saan open ugu dhex soofmaayo waxay tahay cilado dad badan ku soo laabtay oo code dood marka la dhaho ima furmay Visual Studio code iyo hadduu ku furmi waayo configuration-keeda raadi haddii aad ka caajistin nidaamkan code-kaaga ugu furo okay so command tiller npm start yes on inoo soo kacay okay maxaan ka badbedelaynaa okay maxaan iska tirtiri jirnaa app.css kan app.js ha iska yaala sidiisa iska ahaado okay control la qabo kan select say kan select saar kan select saar kan select saar kan select saar dhamaantooda okay so marka intana keen okay app.js مكان استعماله اوكي مكان استعماله اوكي انت عن استعماله روت تبلو رياكت دون اوكي فايل كان سيف ده app.js اماو
abdo cs iyo logada ma isticmaaloy okay meeshaan okay up header iyo hawada ku cun class name iyo waxaan up iyo waxaas ma rabi inta h1 okay control z waxaan samayn jiray maadaama JSX ki dhamaystirmaynin inaan extension kiisa aan JSX ka dhigo soo ma ahayn co JSX iyo auto completion iyo waxyaabahaas aan u helo JavaScript XML okay h1 kadibna aan dhaho hello router DOM okay let's refresh okay wuxuu leeyahay okay .js waxaas ma leh .jsx .jsx yes hello router DOM good before aan install garaysanin reactive router DOM laakiin let's install garaysano kadibna aan ku shaqaysano xoolaheena see loo install garaystaa waa kana intay ku qoran tahay automatically hey come on kan hoos igu soo dhig marka okay intaan waa soo samaysanay cd hebelo waa samaysanay marka inaan dhahno npm install hey maxaa dhahay intaas copyeyso control c kadibna meesha hadda kan uu noo rangaraysan yahay oo terminalkan wuxuu ku rangaraysan yahay reactigeena uu ku rangaraysan yahay soo markii si aan mid kale u kicisid meeshan plus dheh ama split waa dhihi kartaa kadibna midka soo qaadatay copy meeshaas bas ku dheh npm install reactive router DOM waxba version iyo waxba ha ku falin asiga latest version ku install gareenayo mar walba marka hadii oo latest version ka update iyo waxyaabahaas mar walba isaga imaanayo waxa aad u muhiimsan inaa marka documentation ka akhrisid marka install gareystid big difference ay sameeyeen hooks iyo waxyaabahaas ay hadda ku soo dareen isticmaalaan soo marka difference yaroo jiro I think okay command y okay ikadi linki haday aan booqday jiro set oo version hore iyo version kale difference waxyaabahaas u dhaxeeya okay okay ما حسست ماله عادي لكن وايدي soo diri doona versions difference u dhaxeeyo so the first thing aan u baahanay inaan sameeynaa waxay tahay waa inaan isticmaasho horta wixii maadaama componentigii ayadii qaabilsan tahay componentidii inay kala badbadasho index.js kana keen all components ka hal mar waxa ku xiraysaa wax loo yaqaano browser route so meeshaan fur I think p the capital mea let's look yes browser route markaan tab dhaho out import asiga ii sameeynaayo browser route ii soo gelinaya kadibna app.js kaaga dhaxgeli what is it option flat kore qaad waxaa samaysaa browser route markaa saa samaysid out import ku sameeyna hadduu out import ku sameyn waayana I think an extension of out import inuu jiraan jeclahay ma xasuusto so import okay
auto import hadduu jirana anaa idiin soo sheegayo hadda ma waqti iga cunin kale soo marka indexkaaga imaaw waxaa ku raab garaysaa browser router it means all pageskaaga ama componentskaaga oo idil waa inaad ku raab garaysaa horta componentigan oo develop garaysay waa component ee soo develop garaysay react router dom ee soo develop garaysay soo marka waxaa ama si guud waxaa isticmaali kartaa inaad sidaan dhahdid import okay equal from sorry equal wax la ma jiro from okay react router dom ina saas maadaama soo install garaysa saas dhahdid kadibna aad ku shubatid aad dhahdid extract iga soo sameeyay browser route okay marka sidaas samaysid waxaa imaanaysaa meeshan app.js app.js markaa imaadid inta imaawo wuxuu kaa rabaa marka koowaad I don't want to let's use inaan dhaho header ama waxba inta component header laha igu sameeyay okay maadaama walad aan isticmaal karno function isticmaal functional component anigoo file cusub ku abuurtay iyo meeshan ku abuurtay isku mid waaye aan dhaho header page oo kale aan dhaho waxba parameter kama rabo so waxaa u baahanahay return okay nav okay navkaas waxaan u baahanahay ul kii dhexdiisa waa inay ku jirtaa sorry li times 3 oo kale dheh times 3 okay tab dheh saddex xab li each li dhexdiisa waxaan rabaa inay gasho anchor tag okay meeshaan multicursor tab qabo kala kelig meel walba ku dhex sii so waxaan u baahanahay anchor tag href waxba kama rabno by default meeshaan hadda home ku qor okay kan /home dheh /home about iyo contact meeshaane contact kadib kan /about oh where is the charger okay /about internet /contact okay kadibna meeshaan difkan dhexdiisa waxaa ku gelisaa automatically header page okay hadda haddii aan sidaas dhaho where is my react refresh dheh okay home okay automatically wuxuu sameynayaa homekii aboutkii iyo contactigii waa kaasa formatka hadda waxba muhiim nooma ah waxaa muhiim noo ah functionalitygii laakiin mar walbo waxaan u baahanaa marka refreshkaasi waxaas noo dambeeyo so markaan about ku dhufto component about inuu noo soo baxo markaa home ku dhuftana component home inuu noo soo baxo contact markaa ku dhuftana component oo contact inuu noo soo baxo so sfc I don't need any export okay inta waxaa igu qortaa I don't need arrow functions reasonka arrow functions aan u diidayo waxay tahay marka functions ka hadlaya this noocan arrow waxaa loo yaqaanaa expression
so waxay ku qasbantaa inaad kor ku abuurtid haddii kale kuma isticmaali kartid qaybtiisa kore aan ku tuso ama waxa aan sheegayo maxaan u bixiyaa kan home page okay h1 sorry h1 this is the home page something okay let's enter meesha aan dhex geliyo aan dhaho tag for home page slash okay home page waa kaasa so mujida automatically will disable sida kan oo kale mujida bafto waaye deselected camal waaye sida kan oo kale mu nuuray home page anigoo meeshaas ku darsaday marka hadda imaado maya header page miya sorry home page aan dhaho yes hadda okay waaye oh oo shaqeeyay laakiin si guud markii javascript normalka la joogo haddii function noocan u abuurtid waxaa loo yaqaanaa expression ama arrow functions u abuurtid qaybtiisa kore kama wici kartid laakiin hadda maadaama react handle garaynayso waxaan hore laga fulinayn ayada manipulate garaynayso oo export la sameynayo ayada marka ciladaas xalisatay ee u badan tahay laakiin javascript haddaa broweysid maalin inay tusay maalinkii ma shaqeynaynin so that's good hadduu hadda noo shaqeeyey this is the home page okay laba xabo kale ii samee laba component kale ii samee about page iyo contact page so about page iyo contact sorry قفاي ماشي سو وعي كان مسجل القراءة مش خصوصا عندي ربع اوكي اوكي سو وعي اوكي contact sorry contact page dhamaantood waa kaasa way ku render garaysan yihiin laakiin waxaan u baahanahay aniga saan u baahanahay this is the home page this is the home page what is the home page ma laba mar soo bax yes no it's not this is the home page waa sax kan waxaa ka rabaa marka meeshaan le about igu bedel about intana contact okay iyo qaybta ugu dambaysiyo kan iga dhaaf laakiin sidaan umar waxaan u baahanahay home marka la soo baxo home ka bisna ii imaado saan inuu igu imaado soo marka aan ku laabto documentationka the second thing aan isticmaalaysid waxaa waaye uu ku leeyahay inaad isticmaashid switch iyo waxaan kaga baahanahay waa arkaynaa inaad isticmaashid route so inaan dhaho automatically mid walba aan dhaho okay route automatically auto import asiga ku sameeyay okay route ka qaabka hadda oo ninkan uu isticmaalayo ma ahane qaab kale ka duwan aan u sameynayaa oo version hore pathkiisa waxaa dhahdaa pathkiisa waxaa dhahdaa slash kan homekii oo kale waaye okay headerki kaas page headerka waaye kadibna waxaan leenahay component parameter oo component in la siiyo kadibna componentiga waxaan u pass garaynaysaa componentiga asigoo isticmaalaya for example equal inaan dhahdo home page okay intaan iska tirtir so kan kii home page waa kaasa
inta inaan dhahno contact page. Okay, contact page kanne waxaan leenahay about page meeshaan waxaa tusaale ahaan isticmaalayaa inta header roadka maxaan isticmaalaya slash about soomehen slash about iyo kan about page y iyo slash contact qaabka u qoran yahay aan hubiyo. So marka another component kale isticmaalaysaa roadkaas wuxuu qaadanayaa laba parameter path iyo componentigii haddii pathkan la soo gaaro which component yaa la wacayaa inaad sidaan dhahdid. Okay, so mujid hadda automatically maadaama uu home joogo ama slash uu joogo maxaa la soo wacay this is the home page, about ka tagaysaa this is the about page, laakiin meeshan waxaa u jeedaa this is the home page wili inay taalo. Marka hadda ku dhufatid this is the contact page, sababtoo ah maanta idil maxay home page u soo laabanaysaa. Home page mar walba wuxuu u soo laabanayaa slash maadaama uu home page slash oo ka bilowdo wuxuu u arkaa waxaan dhan maadaama ayaga slash ay ka bilaabanayaan slash contact inay asiga hoos imaanayaan. So marka hal mid oo laba mid loogu gudbaa jirto. Midda koowaad waxaa leedahay exact inaad dhahdid automatically marka haddii home page-ka bis la imaado ma ahane ha fiirinin haddii wax walba slash ay ka bilaabanayaan home page-ka ha raacinin. macnaheeda inaad ka dhigtid exactly inaad macnaha dhahdid wixii slash ay bis le match garee hadduu slash wax kala raacsan yahay waxba ha match gareenin. in nidaamkaas ay isticmaashid home about nidaamkan marka waxay tahay version hore ee isticmaali jirtay React DOM oo I think hadda versionka isticmaalayno waxa waaye let's the core function nagay for example APIs hooks ko kale marka la aado version 5 is something like that. version 5 wixii ka horeeyay hadda waxaan u maleynayaa version 5 inuu noogu install gareysan yahay package.json haddaan tago aaway waxaa install gareystay aaway dependency-gayga browser list script package.json kayga soo ma joogi. Okay, development production ESLint configuration script wuxuu u baahan yahay inaa sameeyo version waa sida ku taala waa kana waaba arki way maaqan indhihi ka daciifa amanayna. Okay, so meeshaas ay name router ku qoran tahay mid ku hoos taal maxaa ya kor meesha kore oo ay ku qoran tahay name key values hoos mid ku maxaa version way application ka maadaama project-ka hadda ama aan sameynay si guud default oo siina mugta maadaama create aan nahay. So marka project-ga hadda aan sameynayno version 1 way hadda aragtid marka hadda marka update gareynaysid waxyaabahaas project-ka ku saabsan tahay private waaye dependency-yadii hadda oo install gareysan yahay React DOM iyo React router DOM kuma jida 5.2 point something way. So wixii 5 ka horeeyay aan nidaamkan router-ka isticmaali jirtay what is it okay nidaamkan oo component-iga ee isticmaali jirtay. reason-ka component-iga u isticmaali jirtay waxay tahay hadda haddii aan kan waxay u dhigantaa anigoo file component dib aan u abuuray u dhigantaa waxaan home page-kan iyo about page-kan iyo contact page-kan aan hadda meesha ku abuurtay. hadda rabtiin waa idin sameynayaa inaan dhaho meeshaan sorry horta kow waxay ku qurux badan tahay inaad ka samaystid pages. Okay, about page dot jsx. Okay, sfc. Okay, about I don't need a into can what is it
about page control X intana keen control V control C control V control S sida caadiga oo component file kan ugu abuurinayni ee sidaan u dhigata maadaama aan waqti soo koobaya aan saas u sameeyay okay okay page waxa kale oo ku abuurtaa file kale leeyahay contact page.jsx control V intii keen home page kana mesh sorry asigana control X maadaama home page oo meeshan yahay almost index dot ama home page kayga caadiga aan iska qorto home page.jsx kadibna meeshan paste ku dhaho export default home page control S okay meeshan sorry exporting inta kuma darin export default contact page okay saan hadda contact page waxaas ma yaqaano automatically waxaan uga baahan yahay inaad soo import garaysto import statement caadi dheh okay dot slash pages slash about page okay meeshaan about page qaabku u qoran yahay okay midka kale saddexdan inta home page inta waxaa ii geysaa home page soomeen kana contact page okay home page qaabku u qornaa home page okay kanne contact page okay sida haday sidaan way isku dhigmaan inaad faylasha meeshan ku abuurto iyo sida aan abuurto way isku wada mid waa so okay way marka maxaa wadnay so marka sidaan dhahdid every haddaan fiirino command option component walba hadda markaan fiirino componentska filekiisa haddaana geysid hierarchical iyo waxyaabahaasoo ku daray qaybtan headerkii waaye routerkii ya xasuusto router.consumer ya iyo provider iyo consumerkii haddaa xasuustaan waa context API soo mehen ha si internal ayaga isticmaalayo routerkii isticmaalayo contact page ko kale hadda markaa fiirisid okay automatically probiska soo galay soo umjeedi waxaa soo galayo history location match waxyaabahan waxaa isticmaalo historygan oo kale si default ya loo soo siinaya soo umjeedid historygii action oo pop ah block muhiimadda marka waxaa waaye isticmaalayno push replace pushkan marka waxay tahay inaad automatically marka meesha la keenay inaad si wareejin kartid waa functions isticmaalayaan go back oo kale inaad gadaal u laaban kartid waxyaabahaas oo kale soo marka adi ma siin laakiin si default marka component about am contact page aad dhahdid inaad sidaas wax u siisid mararka qaarkood marka maxaa xal ah tusaale ahaan home page kale aadahe contact page kii oo kale default aawi contact page kii keen si default wuxuu u baahan yahay inuu qaato probe oo tusaale ahaan probes way soo galaya laakiin probe wuxuu u baahan yahay oo name oo kale ah soo marka see ku dhigi kartaa sidee loogu soo baas gareyn karaa probe dot name ama full name oo kale
tusaale ahaan hadduu qaadanayo contact page soo ma ahayn sidee loogu baas garayn karaa kaama yeelaayo way ma dhihi karno hadda meeshaan maadaama markii wax loo baas garaynayo inaad saan oo qaab ugu baas garaysmaan laakiin waxaa jirta markii probkan adhehe full name aragtid oo baas garayso prob asiga oo qaadanaya ay jirto waxaa jirta wax loo yaqaano render function wax la dhahayo inaad sidaan dhahdid kadibna aad dhahdid hal mar control z dheh ama what aan sida ku wadno renderkii wuxuu qaadanayaa callback function sorry equal jx extension keeda samee kadibna waxaa samaysaa function oo wuxuu qaadanayaa callback function ah kadibna automatically wuxuu soo return gareynayaa contact page oo sida componentiga caadi ah u naqaan hadda meeshan waxaan dhihi karaa full name oh sorry control z full name meeshan hadda waxaan dhihi karaa waxaan rabaa hadda u baas garayn karaa inaan dhaho Abdullahi Abbas marka sidaan dhaho this is the contact page Abdullahi Abbas mujida probki sidaas loogu soo baas gareeyay laakiin haddii aad fiirisid meeshan for example contact page ka hadda fiirisid probiska full name bas ajir aawi history-gi iyo location-ki iyo match-ki iyo oo hadda markaa meeshan automatically hadda about-ki aan imaano where is the header page the about page-ki oo kale had soo majid history-gi location-ki iyo match-ki iyo way lumeen sidaas darteed haddii aad rabtid parameters-ka kale inaad dib u siisid meeshan probki wuxuu qaadanayaa prob ahaan oo probyadii hore oo defaultigii watiya la soo siinayaa inaad sidan dhahdid aad ku qasban tahay marka dot about page sorry pole dot probis inaad dib u siisid soo markaan hadda oo aan dib u tago magaciis muxuu ahaa contact page Abdullahi Abbas waa la siinayaa sidoo kalena maxaa ii soo baxay history-gi iyo wixii iyo dhammaantoodana value-giiskaas dib ugu la socdaan inaad qaabkan oo kale ama value-gi ama sidaas oo kale inaad dib probiska u baahan tahay soo marka probiska maxay kaa saacidayaan hadda haddaan u baahanahay meeshaan markii home kala joogo home page-kii oo kale marka la joogo waxaan u baahanahay meeshaan div ii geli okay tab kor u qaad wili kor u qaad laba button ptn sorry button oo la leeyahay about iyo ptn oo la leeyahay contact labadaas button meesha yaalo soo mid walba waxaa la rabaa markii click la siiyo in uu kan about-ka igeeyo kanna uu igeeyo contact-ga uu igeeyo soo sidee u sameynaya waxaan u sameyn karaa inaan dhaho for example inaan dhaho meeshaan click handler in automatically click handler-ka parameter la soo siiyo la dhaho route so kadibna la dhaho automatically on click marka la siiyo sorry maanta dhan video igu programsan markii la sameeyo maxay on click si fiican on click marka la isticmaalo inaad dhahdid callback function dib u wac kadibna aan dhaho click handler meesha intee la aada about soo maaha slash waxaa siisaa slash about exactly qaabka ugu qornaan rabaa slash about oo capital oo smallization ah slash about c kanne the same code copy
marka buttonkan asigana click la siiyo waa inuu aadaa /contact inuu nidaamkaas ku shaqeeyo soo markii meeshan roadkii la soo siiyo meeshan function okay markii automatically la soo siiyo roadkii la soo siiyo inaan dhihi karno hal mar meeshan console.log kadibna waxaa soo baas garaysaa probes kii naloo soo dhiibay c okay meeshan probes soo galaya as a parameter ahaan control C okay let's go back to the home page okay let's console hadda markaan ku dhufno probe waxaa soo galay history iyo location iyo match saddexdan xabo marka waxay kala qabanayaan documentation si fiican u kala akhri soo tusaale ahaan hadda daan rabo inaan meeshan as a programmatic inaan u aado waxaan dhihi karaa marka inaan dhaho inaan isticmaalo history what is the history marka inaan dhaho dot bush waxaa samaysaa bushkii wuxuu qaadanayaa path uu qaadanayaa inaan dhaho history dot history maaha history wuxuu hoos imaanayaa probes inaan dhaho dot history history dot bush bracket fur kadibna roadka loo soo gudbiyo c marka hadda sida aan dhaho automatically hadda about haddaan dhaho automatically muxuu igeenayaa about page haddaan hadda back dhaho wuxuu isoo celinayaa home page-kii ugu soo celinaya contact haddaan dhaho automatically muxuu igeenayaa contact page-kii oo Cabdullah Abbas uu leeyahay back aan leeyahay haddii aan meeshii bush ahead aan ku bedelo replace waxaa samaynaysaa automatically hadda markaan about ka tago muxuu igeeyay about page hadda laakiin markaan back dhaho wuxuu igeenayaa contact page sababtoo ah markii la sameynayo bushka let's share my screen to whiteboard history wuxuu sameynayaa let's awi shapeska okay sidii array oo staagii waa taqaaniin ama inaa data structure dhamaantiin in badan waa soo wada qaadateen wuxuu sameynayaa this list of history locations kala booqday waaye markii inta waxaa ku jira meeshan for example markaa meel booqatid oo kale intii homekii oo ku geenaya haddaa meel kale booqatid markaa bush kale aad dhahdid homekii hadda joogta markaa dhahdid for example draw 2 3 oo kale saan oo kale homekii oo kale markaa joogtid hadda markaa booqatid aboutkii oo kale aad booqatid wuxuu sameynayaa about wuu tagayaa markaa about aad joogtid markaa back dhahdid automatically homeka u laabanaya haddana markaa homeka tagtid oo bush wuxuu kusii darayaa contactiga saas ugu sii darayaa laakiin markii replace aad dhahdid for example clear by drawing sorry markaa dhahdid replace control z la ma jirmiya control z okay for example homekii aad booqatay ku soo laabto homekii aan dhex joogtaa home waxaa booqatay about markaa booqatay markaa about aad back dhahayd automatically liiskan waa la tirtirayaa waxaa lagu laabanayaa homekii lagu laabanaya maadaama aad bush isticmaasho bushka wuxuu sameynayaa staagii wuxuu sameynayaa wuxuu ku darayaa about contact hebelo back markaa dhahaydna gadaal u soo laabanaya bush iyo bobki sidii arrayda ku taqaanideen oo kale laakiin replace waxay tahay wuxuu fiirinayaa hadda tusaale ahaan waxaa joogtaa home aan dhex joogtaa markaa dhahaydid about tag meeshii bush sameyn lahaa history home markaa imaanaysa meelaa ka imaada sooma contactiya kaloo ka imaaday history meeshii about-ka ahayd ama meeshii home-ka ahayd oo tirtiraya automatically meeshii kale ayuu replace ku sameynayaa mostly waxaa loogu talagalay I don't know meelaha u baahan tahay inuu qofka uusan kaga laabanin oo kale
for example login page oo kale markaa isticmaalaysid qofka markuu soo galo oo userkiisa iyo passwordkiisa credentialkiisa la hubiyo ee sax yihiin haddii bag oo dhaho ma la rabo in loogu celiyo login page-ka so marka waa in markaas oo kale waa inaa isticmaashaa replace wax la dhahayo so marka let's go back to the last version of version 5 ka marka nidaam ka duwan isticmaalaan oo qaabkan ah waxay isticmaalaan instead of component adii lahayd in sidaan la iska tirtiro kana sidaan automatically la isticmaalo as a children ahaan loo dhaho about page in sidaan la isticmaalo meeshii component about page adii lahayd automatically inaad استعماشت what is it كان يقترت الكومبوننت ده هنا as children هانو استعماشت كان وحا استعماشها contact page اوكي هنا سيدان استعماشت كان هذا رندر كان يقترت automatically سيدان كان يقول سو قبه control x render كان مربي as a children هانو استعمال اوكي ماشي عند حديثه جاي اوكي inaad sidan u isticmaali kartid adigoo ka fikireynin wixii la siin lahaa oo probiskiisa iyo wixiisa hadda markaa sidan dhahdid what is the home page maxaa problem oo haysta okay contact page okay yes ماشي home page كي waxaan ku bast gareeyay okay contact page home page hadda marka sidaan dhaho home page hadda marka ku soo laabto hadda marka about tag aan dhaho error isoo baxay wuxuu leeyahay type error can't read the property replace of undefined because meeshan history wax la lahayo ma la yaqaanabo marka inta imaadid probably la soo daawac soo mujid wixii la siinay ma jiro soo marka sideen ku heli karaa history-gi iyo match-ki iyo query-gi iyo waxyaabihii aan rabin waxa ku heli kartaa marka context adigoo isticmaalayo for example waxa jiro hey come on ka bax meesha okay home page salahan home page somee inta meesha ku isticmaalay wax la dhahayo history ma jiro history maadaama uusan jirin replace na ma jirayo replace doosan jirin meeshan error kaaga imaanayo soo marka cagsigeeda waxa isticmaalaysaa waxa jiro hook ayaga si default ah ay u isticmaalaan la dhahayo let history equal use history use history marka dhahayd automatically reactor doma ka soo galaya use history waa custom hook oo reactor sameysay hadda markaan dhahdo let's go back to react so marka use history oo kala hadda marka dib ugu laabano okay wuxuu ku leeyahay qaabkan aan u isticmaalaysaa iyo use locations iyo use history inaad saas u isticmaashid way errorkan aniga igu keenaya react hook use history is called in a function click because shuruucda hookiska wuxuu ahaa inaad ku isticmaalin local field oo meesha hadda waxa ku dhex isticmaalna click function kana ku dhex isticmaalna soo marka waa in aad first level aad ka dhigtaa oo function kan qaybta kor aad geysaa history hadda haddaan dhaho console.log history I think okay history si qaabkaas u qorno okay control s dheh hadda haddaan imaano reacting appkeena about haddaan dhahno soo ma jeedid inuu ina siinayo dhammaan historygi wixii ay lahayd bushkeeda iyo replacekeeda iyo hadda automatically waxaan awoodaa inaan dhaho let's update si sax aan qoro history that objective so marka commentiga saar
hadda waxaan awoodaa inaan dhaho history.replace route inaan toos u dhaho inaan hadda soo ma jeedid automatically contactiga igu celinayaa contact haddaan dhaho meeshii geenayaa inaad qaabkaas u isticmaali kartid use history mostly inta use match iyo waxyaabahaas in la isticmaali karo let's go back to our code inaad use history use location use promise use roadmap marka simple english ku qoran intaan marka meeshaan idin ka sii wada aniga madaxa idin kaga taabtay idinka laga rabaa inaad jilib iyo xusul iyo ka dharjisaan hal mid kale iloobi sorry switchka maxay u taagan tahay switchka waxay u taagan tahay instead exact isticmaal lahayd what is the code ki okay instead isticmaal lahayd isticmaal lahayd exact oo meeshaan exactiga aan isticmaal lahayd waxaa kugu filan inaad isticmaashid hal mar meeshaan aan dhex gelisid switch component oo switch automatically wuu ku soo daray meeshaas kadibna intaan soo qaad okay exactiga waa ka bixiyey sidaan u shaqeynayaa hadda koodkeena okay waay hal cilad kale jirto meesha anaga waxaan isticmaalaynaa router wax la dhahaa anchor tag isticmaalna mar walba aan click siiyo page-keena mujida refresh isku diraya si kale haddii aan network ku dhufto every time meesha haddaa fiirisaan markaan home-ka click ku siisto every time request cusub la diroyaa oo local host html-keena in la koobiyeeyo bundle.js javascript-keena in dib loo soo download gareeyo waxaan marka waqti lumis waayo koodkaaga culeysinaysaa oo maanta idil page in dib loo dhiso soo marka cagsigeeda waxaa isticmaashaa instead aan link isticmaal lahayd waxaa isticmaashaa wax loo yaqaano meeshaan dib noo keen webkana keen okay the basic okay waxaa isticmaashaa wax loo yaqaan instead aa isticmaal lahayd linka road aa isticmaal lahayd magaciis muxuu ahaa anchor tag aa isticmaal lahayd waxaa isticmaashaa where is the header page keena okay header page intana keen no it's not header okay header page inta noogu samaysnaa instead anchor tag aa isticmaal lahayd waxaa isticmaali kartaa road component loo yaqaano link okay slash sidaan dheh soo marka automatically kuma soo darin inta miya link okay l capital miya mise small y capital y I think Pascal case isticmaalaya linkiga marka meeshii href la isticmaal lahaa automatically waxay u taagan tahay inaad waxaa bedelka isticmaali kartaa to double quotation slash about okay hadda kan aan sidaas dhaho sorry to okay double quotation ka alxab ka tagay okay hadda marka saan u laabto ya magaca about ku soo baxay self close ku sameysana sorry self close aan ku sameeyay miya okay inta hadda waxaa igu soo bixisaa about okay hadda argay home markaa ku dhufto page-ki dib u refresh ku diraa laakiin about markaa ku dhufto soo uma jeedid about waa leegeynaya laakiin page-ki dib refresh isku mudiraa argay contact-ga ku dhufanaya about-ka si fiican u fiiriya no refresh wixina waa la ii qabanaya soo marka meeshii anchor tag ka isticmaal lahayd waa inaad dhamaantooda ay isticmaashaa link soo marka kan saas dheh control d control sorry wax walba oo control d ka dhigaya soo marka anchor tag dheh control d igot okay inta link igu bedel ama kan ii copy meeshaan paste ku dheh inta slash home kanne waxaa sameysaa linkigan hawada ku xun control v
/contact. Okay, contact. Okay, fresh ده. Good. So هذا home كعادي أنت جاية about كعادي أنت جاية كان عادي أنت جاية home ككل عونا يا وح كود network أو deep refresh لو قدر يعملها هذا في ريسيت and page element تيجي في ريسيت قابك اسمه سيها هاي link يجي for example كم دورة هذا link يدا نجي فيري موجودة UL كي LI أكون حجر LI automatically محوطة automatically أسيقى anchor tag وطه anchor tagas oo wato slash about oo geenaya laakiin waxa ku dhex xiran function ada as a component aan u fiirisid react component aan u tagno link anchor kan hada fiirino soo ma jeedid navigate function oo wata function kan marka wuxuu sameeynaya default behavior asiga ka cilna sida on submit ki aan refresh ko kale ugu celinay e.prevent default oo kale aan u dhehine asiga code kaas oo kala qabanayo هذا أذيك بس كحدا أسكو جيسانو وصفي عن أطح لوجسان you don't need إنا استعمال شيء react الراوتر كائنا استعمال حتى أم بهناك كرتوا develop جريسن كرتا أذيك نفس الكائن وحوب أنت time إيو كوعلى علم بدن automatically نوا install جريسن إذا react يكون install جريسن إذا boom ويسلو شقينا يعني so مركا جلاس كأنا أنت سو كويجي هاي حضو إليه كرا النقطة نحنود إننا وحيابها عن شكله hadda aan isleeyahay aan cover gareynin hadda page-kayga dib ugu laabto let's close recording-ka iska isjoojiyo stop recording